الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. casharkana maanta wuxuu ka bilaabanayaa suurat alfaatixa bilowgeeda. suurat alfaatixa makiya weeyaan, aayadaheeduna 7 aayadood weeyaan, erayadeeduna 25 erey weeyaan. haddaba suuraddan waxyaalo waaweyn ee caqiidada islaamka saldhig u ah ayay ka hadlaysaa. waa ma arki doontaa kolkaanu maqnayno in eebba yidhaahdo bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu sugnaatay, rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda. mahad oo idin ilaahay ayaa iska leh, allaha oo ah caalamiinta oo idin kii abuuray, kii rabbi u ah maamulahaya. ilaahay subxaanahu watacaala waa ismahadinayaa, waana nambarayaa in aanu sidaas uu asagu isu mahadiyey ku mahadino. alxamdu lilah, mahad allah iska leh, rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah. ku naxariista, naxariista teeda ballaaran ku naxariista, naxariista teeda caamka ah ee adduunyada dhexdeeda ah, kaafir iyo mu'minba iyo wax nool oo dhan camimaysa, allada ku naxariista. arraxiimi, naxariista, naxariista gaabka ah ku naxariista, naxariista teeda yaryar ku naxariista, naxariista khaaska ah ee ku gaabka ah dadka mu'miniinta ah maalinta qiyaamada ku naxariista. allahaas ayaa mahad iska leh. arraxmaan arraxiim, ilaahigii naxariista adduun iyo aakharaba naxariista iska leh. naxariista adduun iyo midda aakharada iska leh ku naxariista, midda gaab iyo midda guud ku naxariista, midda waaweyn iyo midda yaryar intaba ku naxariista. oo waxa weeyaan arraxmaanida iyo arraxiimida. arraxmaanida ayaa guri weyn ee ballaaran, sida xurufteeda kolkaad fiiriso ay uga xuruf badan tahay, ayay macnahana uga ballaaran tahay. marka arraxmaanid waxay keenaysaa naxariis guud oo dadka oo dhan iyo waxa nool oo dhan gaaraysa. naxariistaasuna waxa weeyaan naxariista ilaahay adduunyada taalla. naxariista adduunyada waxay gaaraysaa waxa adduunyada ku nool oo dhan way gaaraysaa. low naxariistiisa ay ahayna wax noolaan lahaa ma ay jirin. arraxiimina waxaa lagu fasiraa naxariista gaar ahaaneed ee ilaahay ku gooni yeelaya naxariistiisa aakharo dadka mu'miniinta ah ee ehlu jannaha noqonaya. maaliki yawmi ddiin, abaalmarinta maalinteeda maaligeeda ama maliki yawmi ddiin, abaalmarinta maalinteeda maligeeda iyo boqorkeeda. ilaahay subxaanahu watacaala maalin walba asagaa iska leh, adduun iyo aakharaba asagaa iska leh. adduun iyo aakharaba asagaa melig ee boqor ah. marka maalintaa waxaa loo khasisahayaa inta kaleeto ee maalinta aan ahayn ee adduunyada adaa sheegad baa jira, caaliyaa jirta oo waxyaalo caali ahaan loo sheeganhayo lahaasho ah ayaa jirta, ama boqortooyo la sheeganhayo ayaa jirta. ama maalinta aakharo wax sheeganhaya, wax milkin ama boqortooyo sheeganhaya ma ay jireen. asagaa sheegadkii oo dhan asagaa loo sallimahaya, looga tanaasulahaya, xaqiiqadeedii arrinta u noqonaya, wixii caaliya ahay oo dhan way zuulahaya. dhabtii keliyaa soo haraysa ee ah ilaahay inuu lahaashada leeyahay, keligana boqor yahay. iyaaka adigaan allow nacbudu ku caabudaynaa, keliga ayaan cibaadada kugu gooni yeelaynaa. wa iyaaka adigaan nastaciinu kaa kaalma dalbaynaa, adigaan ilaahayow kaalmana ku weydiisanaynaa. ihdinaa na hanuuni, asiraada jidka nagu hanuuni, almustaqiima ee toosan ee ah diinta islaamka.
bilaaban hayo suuratul baramoyi inta kaleeto suuradaha qur-aanka waa lagu bilaaban haya ayadana haddii eeba yiraahdo markaan ayada ka hadlaynaa xigmadii bisinkaa looga tegay suuratul bara ayaanu ka hadli doonaa. marka waxay tusinaysaa taas magaca ilaahay wax kasta oo muhim ah inay habboon tahay in lagu bilowdo sida nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amar kasta ee muhim ah oo bisinka ilaahay aan lagu bilaabin waa mid oo abtar ah manaa ku ereg xun weeyaan oo dib go-an oo barakadiisu ay naaqis tahay. taa waa mabda' weyn ee laga faa'iidaysanayo bilaabashada bisinka ilaahay loogu hordhigay ee lagu bilowday. tan labaad waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu yahay mahad oo dhan asagu iska leeyahay isna mahadinhayo dadkan uu barahayo koonkaan oo dhanna inuu asagu rabbi u yahay. ogaashada taa qofku ogaado waxa weeyaan caqiidadeeda saldhigeedii uu helayo markuu ogaado koonkaan oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala inuu rabbi u yahay inuu maamulahayo marka inay tahay arrinta in asaga loo celiyo lagana qaato waxa weeyaan saldhigga caqiidada islaamka weeyaan taas. waxaa halkaas ka garanaysaa ilaahay inuu yahay kii naxariistay naxariistiisa ay ballaaran tahay cadadiisana ay ka horrayso kana badan tahay. inuu asagu yahay maalinta qiyaamada kii ee iska leh oo markaa halka aad ka garanayso maalintii qiyaama jiridii aad ka garanayso maalin dambe inay jirto oo dadkii oo dhan la abaalmarinayo qof walba wuxuu soo kasbaday khayr ama shar lagu abaalmarinayo. taasina waxa weeyaan saldhigyada caqiidada inuu qofka uu rumeeyo maalinta aakhira jirideeda iyo qof walba in lagu abaalmarin doono waxa uu kasbaday. tan kale waxa weeyaan ilaahay cibaadada in lagu gooni yeelo iyo kaalma qalabkaba labadaba ilaahay lagu gooni yeelo. tan kale in muxuu ahaa ilaahay halkaa naga tusinayo sidaanu u baryi lahayn oo markaas addoonku ay tahay dariiqiisu ama waxa la gudboon asagoo dadaalayo awooddiisa oo dambixinhaya haddana inuu ilaahay ku tiirsanaado had iyo jeer ilaahay u baryayo ihdina siraada almustaqiim jidka toosan ilaahu nagu hanuuni jidkaa oo ah kuwii hore dariiqoodii. haddaba halkaas laba dariiq inay jiraan kuwo ilaahay u nicmeeyey iyo kuwo ilaahay u carooday iyo kuwo baadiyoobay inay dariiqyada ay jiraan. marka jidka had iyo jeer dadka mu'miniinta ay weydiisanayaan waxa weeyaan jidkii kuwa loo nicmeeyey ee ambiyadii ilaahay iyo shuhadadii iyo dadkii wana wanaagsanaa jidkoodii ah. waxaa la wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay baa yidhi manaa xadiis alqudsi oo ilaahay uu yidhi nebigan uu ka xikaayonhayo ka warramayo ilaahay baa wuxuu yidhi salaada waan qaybiyey aniga addoonkayga yaan ku dhex qaybiyey qayb anigaa iska leh qaybna addoonkaygaa iska leh. addoonkaygu waxa uu su-aasho wuxuu u weydiisto ayuu leeyahay. addoonkaygu markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaa markaa ilaahay yidhaahdaa addoonkaygu way ammaanay way mahdiyey addoonkaygu. markuu yidhaahdo arraxmaan araxiim oo sidaas addoonkaygu faatixada akrinhayo arraxmaan araxiim uu yidhaahdo ilaahayna markaa wuxuu yidhaahdaa addoonkaygu way ammaanay. kolka hore alxamdu lilahi rabbialcaalamiina markuu yidhaahdo wuxuu ilaahay odhanhaya addoonkaygu waa imahdiyey. arraxmaan araxiim markuu yidhahdana ilahay wuxuu odhanhaya addoonkaygu waa ii ammaanay. maaliki yawmi ddiin markuu yidhaahdana wuxuu odhanhaya addoonkaygu waa i sharrisay. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu addoonku yidhahdana ilahay wuxuu odhanhaya taas aniga addoonkayga u dhaxaysa. ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daalliina markuu yidhahdana ilahay wuxuu odhanaya taa addoonkayga u sugnaatay addoonkaygana waxa uu su-aasho ayuu leeyahay. haddaba taas iyo waxyaalkaas suuraddan ay tusaalaynayso waxaad ka garanaysaa suuraddaanu macnaha weyn oy leedahay iyo had iyo jeer akhriskeedu ugu badan yahay salaada loogu soo celcelinhayo dadka muslimiinta ah qof kastoo mu'mina iyada ku tacalluqsan yahay oo markaas qofka mu'minka oo salaada tukanhaya ugu yaraan uu akrinhayo habeenkiiya maalintiiba 7 jeer uu akrinhayo markay u yar tahay. markii kaleeto salaado sunna uu sii tukanhayana ayna xisaaba lahayn oo markaas had iyo jeer faatixada qofka mu'minka uu la xiriiro akrinhayo. salaada ayada lagu tukaninna maba ansaxayso sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaad ma laha qofkii aan faatixada akriyin. sidaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. marka waxa weeyaan faatixada waa saldhigga ayadoo qur-aanka lagu furfurtay ee bilaabashadiisa ay tahay
haddana caqiidada saldhiggeedii weeyaan waxyaalka waaweyn oo dhan ayay ka warramaysaa. saas daraaddeed baa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku siiyey 7 lasoo celceliyo iyo qur-aankaa weyn. 7 lasoo celceliyo waxaa lagu fasiray faatixada 7deeda aayadood ayaa lagu fasiray. soo celcelinteeda oo akhriska had iyo jeer lagu soo celcelinhayo xataa soo degiddeeda waxaa la wariyey 2 jeer inay nebiga ku soo degtay. ayadoo marku soo degtay ayaa haddana mar labaad sidii ayadoo cusub haddana lagu soo dejiyey malaa'ig badan ay sugantamayso. saas daraaddeed dadka mu'miniintu waxa wanaagsan had iyo jeer faatixada inay la xiriiraan kolkay akrinayaan ayada oo macaanideeda tadabburayo firfiirinhaya ilaahay inuu mahad oo dhan iska leeyahay, koonkaa rabbiga inuu yahay oo maamulaayo, naxariista inuu yahay, naxariista waaweyn ee teeda yareeba ku naxariista, aakhara ayagoo qalbiga ku haya oo milicsanhaya, cibaadada iyo waxa ay la imaanhayaan daacada ilaahay ayagoo ku gooniyeelayo si daacada ula imaanhaya ayagoo markaas ilaahay baryada u jeedinaya wanaagsan oo marka ilaahay nagu hanuuninhayo ihdina siraada almustaqiim. jidkaa toosan waxaa lagu fasiray jidka islaamka inuu yahay oo markaa ka magangelaya ilaahay inuu baadiyeeyo kuwii hore ee baadiyoobay jidadkoodii, kuwaas ka magangelaya ilaahay. jidkaa toosan oo weydiisanayaan waxa weeyaan kuwii ilaahay u nicmeeyey jidkoodii oo aan ahayn kuwii ilaahay u carooday. yahuudda ayaa lagu fasiray kuwa ilaahay u carooday. wala daalliina kuwii baadiyoobayna aan ahayn. casharkeenna maanta intaasu koob yahay. wasalaamu calaykum waraxmatullah. casharkeenna maanta ku ka bilaabanayaa suuratulbaqara bilowdeeda. suuratulbaqara madaniyahiye waxay ku soo degtay madiina nabiga intuu soo haajiray, waxayna ka mid tahay suurooyinkii soo degay nabiga markuu soo haajiray kuwa ugu horreeyey. aayadaheeda badankooduna waxay ku soo degeen si isdarajoog ah. hase yeeshee waxaa lagu helayaa aayado ka mid ah qur-aanka soo degidiisa kuwa ugu dambeeyey. aayadahaas oo ah aayadaha ribada ka hadlaya waxay ka mid yihiin aayadaha ribada ka hadlahaya qur-aanka soo degidiisa kuwii ugu dambeeyey. suuradan sida ay u hadlayso waxa ay ka kooban tahay 2 qodob oo waaweyn ayuu hadalkeedu u badan yahay. 2daa qodob oo kala ah yahuudda iyo horistaagga ay siinaysay diinta islaamka hor istaagaysay iyo cadaawinimadii ay la cadaaweynaysay, taa oo aan arki doono aayaad badan ee ka hadlaya nicmada ilaahay ugu nicmeeyey iyo dabeecadooda say ahaan jirtay. weligeed ay insaan hor ilaahay ku tusin jiray rasusha muxuha waxyaalkiiyo dhibaatooyinka ay muxuha ka soo martay iyo sida muxuha xaalkoodu ahaa. xaalkaas ayaana loogu soo bandhigi doonaa suuradan. isla waqtigaas yahuudda iyo kuwii afkood ku shaqaystooyinka ahaa ee islaamnimada sheeganaya munaafiqiinta ahaa xiriirkii ka dhexeeyey ee ay u wada heshiiyeen nabiga iyo asxaabtiisa sidii loo mudayn lahaa iyo kuwii kaleeto ee gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa. waxay kaleeto ka hadlaysaa dadka mu'miniinta ah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درسكنا وحو كبلابنا سورة الفاتحة بلوغينا. سورة الفاتحة مقعيدة ورا إلا هذا سورة الفاتحة والله إلا هذا إلا أين كتاب كريم كابو كبلاب مثل اللبات أم الكتاب نوالا أم الكتاب كتاب القرآن هو يدي أو كتاب القرآن وحيابها وكهد الله الصفة أساسا وكهد الله أي يد الصواقف قيب وحي كهد الشيء القرآن إلهي التوحيد كيس يتفوين كيسي أمانته وليه ونك وإكهد ليسا سورة قيبنا وحا إكهد ليسا ذاتك ونكسنا الصالحين تا قرآنك أي قيب كهد الشيء صفة أساسا وكهد الشيء
يدنا ويساقط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم qayb ka mid ah quraanka waxay ka hadlaysaa dadka liita ee guuldarradu ay ku dhacday iyagana way ishaaraysaa waxyaabaha uu quraanku ka hadlo in badan uu faahfaahiyo si guud bay u tilmaantay alxamduna waa la yidhaahdaa suuradan oo dee adiga arkaya alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay uu ku bilaabay waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu shifaa waa suuradda caafimaadka qofka cudurka hayaa lagu akriyaa sida ka sugan asxaabtii nabiga ridwaanullaahi calayhim qofku kay ku akriyeeno ilaahay baa caafimaadiyey dabeedna nabiga calayhi salaatu wasalaam mushqaayad la soo siiyey bay ula yimaadeen oo aanay ahayd waana u baaskareeyey nebigu amaba waa fasaxo ista waxbuu ka qaatay marka qofka bukana waa lagu akriyaa shaafiya iyo suuratu shifaab waa la ydhaha suuraddu fadli bay leedahay fadli ayay leedahay axaadiis badan baa ka warramaysa fadligeeda waxaa ka mid a xadiidka warinayo abi saciid ibni mucalla allah ka raalli noqde nabigaanu inuu yidhi naxariistii nabadgelyo kuurkiisa ahaata markaa wuxuu igu yidhi bu inta rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaan ku bari doonaa suuradda qur'aanka kariimka ah suuradda qur'aanka ugu weyn intaynaan masjidkaba ka bixin markii uu doonay inuu ka baxo ayaan xusuusiyey bu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi bu yidhi الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته تطلع آيات صور نغنغضة ويان سورة سيوى الحمد لله رب العالمين وقرآن كوين الليسيين وعكال النبي عليه الصلاة والسلام حديث كجسوغا ساين هربا أصول إشارنين أصول المعنى in asxaabta qaarkood intay ku akhriyeen qof buka oo aad u ildaran ilaahay u caafiyey markii loo sheegayna uu nebigu saxaabiga la hadlayo uu ku yidhi wamaa kaana yudriih annahaa ruqya maxaa ogeysiiyey inay caafimaad tahay ilaahay baa wax ku caafimaadiya marka taa qudhigeedu waa fadli ay leedahay suuradda dadkeenna inta badanina way xafidsayn markaa qofku xanuunka iyo wixii shakiyaha uu dareemay wuxuu dhan uu ka akhrisanaya ilaahay damkiisa iyada qur-aanka oo dhan caafimaadu quluubta iyo jidhkaba u yahay haddana si gaara daliilkaasi ugu soo arooray suuradda waxaa fadli ka mida nabigu tilmaamay calayhi wasalaam qofka salaada ee aan ku akhriyin faatixatulkitaab ama biummi lqur'aan qur'aanka hooyadii oo suuraddana salaadiisaasi inaanay dhammaystirmaynin ama aanay ansaxayn waxaa runtii fadli weyn iyaduna ah oo suuraddani ay leedahay rasuulku wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaana waxaa warinaya sida muslime inuu ilaahay yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn salaaddu way noo qaybsan tahay anigiiyo addoonkayga laba ayay noogu qaybsantahay ama faatixaduba addoonkaygu waxa uu leeyahay wixii uu is-u-aasho oo aan ka aqbali doonaa wixii uu igu ammaanana anaa ka guddoomaya marka uu addoonku yidhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa wuxuu idhaahdaa xamadanii cabdi addoonkaygii wuu imahadiyey marka alla wuu ka guddoomaya kolkuu qofku idhaahdo alraxmaani alraxiim alla wuxuu leeyahay asnaa calaya cabdi addoonkaygii waa y ammaanay markuu qofku idhaahdo maaliki yawmi ddiin alla waxa ugu jawaabaya haddana majadanii cabdi addoonkaygii waa i sharifay oo wuu imaamuusay kolka addoonkii uu idhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alla wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al intani anigii addoonkay noo qaybsan isagu wixii uu i weydiiyeyna wuu leeyahay ilaahuw adaanu ku caabudaynaa cibaadadaa ka aqbalay ilaahuw adaanu gargaar kaa doonaynaa waanaan siin doonaa kolkuu qofku idhaahdo ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلكو قفكو يدعو الله وحو ugu jawaabaya hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al inta adoonkayga iskale adoonkayguna wixii uu su'aalay ayuu iska leeyahay haddaba kolka aad aragtay in sidaa ilaahay uu kugu jawaabayo adigoo faatixadii akhriyaya ma habboona in qalbigaagu sii jeedsado oo meel kale aad eegto laakiin waxaad ogaataa
inaad ilaahaaga la faqayso oo aad la sheekaysanayso kolka aad akhriyayso faatixada amaba salaadii aad ku jirto ee aad alla u cibaadaysanayso haddii aynu usoo noqonno tafsiirka suuradda alla waxau ihi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaaha caalamiinta oo dhan iska leh ayaa mahadle dhinac waxay ka tahay ilaahay oo naftiisa ammaanay dhinacna waxay ka tahay isagoo ina baraya oo le quuluu alxamdu lilah waxaad tidhaahdaan ilaahayow adiga ayaa mahadle dhowr suuradood oo qur'aanka kariimkaa ka mid a oo ku bilaabma erayga alxamdu lilah oo iyaguwa ah tacliimin ilaahay uuna barayo ammaantiisa ayay suuradda ugu horraysaa suuraddan iyo suuratu lancaam suuratu lkahfi suuratu saba iyo suuratu faadir shantaas suuradood ba alxamdu lilaahi baa u horreeya ashu had iyo jeer xagga luqada carabiga haddii erey loo horraysiiye xarafka al ah macnuun buu faa'iideeyaa marka macnahay faa'iidaynaysaa iminka waxa weeye kullu alxamdu lilah mahad oo dhan ilaahay baa iska leh mahadda ilaahay si toosa loo mahadiyo garana ee la yidhaahdo alxamdu lilah haddii qof si gaara loo mahadiyo macruuf iyo sameeyey maxay noqonaysaa isagana yaanu qofkaas si gaar u lahayn iyada qudhigeeda mahadda aad cid gaara mahadisaana ilaahay unbay u noqonaysaa waayo qofkani waa qof la farsameeyo ilaahay baa sameeyey markaa sidan lagu ammaanay ee qofkan lagu mahadiyey ilaahay u sameeyey baa kusii ammaanan tabaaraka wa tacaala alxamdu lilah ilaahay waa rabbulcaalamiin caalamiinta dhan isaga ayaa iska leh marka alcaalamiin waxaa fasiraysa aayad kale nebi muuse ayaa iyo haaruun walaalkii haaruun labadoodaasoo wada socdaa ilaahay u diray fircoona way u tegeen markii ay isu sharxayeen waxa ay yihiin iyo cidda soo dirtay waxay xuseen inuu ilaahay soo diray rabbulcaalamiin qaala fircawn wamaa rabbulcaalamiin qaala rabbu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin fircoon baa soo booday oo laabta garaaco waxa uu leeyahay war rabbulcaalamiinkaas sheegtay muxuu ahaa anigaaba ka rabbiya meesha kolkaasay u jawaabeeno waxay idhahdeen waa rabbiga iskale samooyinka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysa iyo waxa ku dhex jiro o dhan wey marka alcaalamiin waxaad arkaysaa makhluuqaadkao dhan inay yihiin waa ninkii shaacirka ahaa gabyayey ibnulmuctas baa waxau lahaa fayaa cajaban kayfa yacsi lilaah am kayfa yajxaduhu ljaaxid wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu aad buu layaab u leeyahay buu leeyahay qofka ilaahay caasiyaya ama diidaya siday taasi uga suuro gelaysa iyadoo shay waliba uu leeyahay astaan iyo aayad tusinaysa ilaahay inuu keli yahay alraxmaan araxiim ilaahay waa ilaaha raxmaanka ah ee raxiimka labada sifaba isagaa iska leh marka raxmaan weeyo nicmadiisa adduunyada gaal iyo islaamba uu siiyey ama raxmaan waa ilaha nicmooyinka waaweyn bixiya raxiimna waa ilaha nicmooyinka yareere addoonka ka qabsoon bixiya ee markaa aan u muuqanayn ama raxiim waa ilaha awliyadiisa ku gaar yeelay naxariista maalinka qiyaamaha wa kaana bilmu'miniina raxiima marka raxmaan ilaahay unbaa lagu sifeeya laakiin raxiim makhluuqa qaarkood waa laga yaabaa in lagu sifeeyo siduu ilaahayba nebiga ugu tilmaamay ra'uufun raxiim laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim dadka mu'miniinta abuu aad ugu naxariisanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maaliki yawmiddiin maalinka qiyaamaha ilaahay baa iska leh ilaahay waa ilaaha maalinka abaalmarinta isagu iska leh oo imikaba ilaahay maalmahana isagaa leh dadkana isagaa leh cid walba isagaa leh haddana ilaahay si gaara maalinka qiyaamaha wuxuu yidhi anigaa leh macnaheedu waxa weeye maanta dad baa wax sheegta dawladaa wax sheegta shakhsiyaad baa wax sheegto qofku wuxuu leeyahy waa waxaygii laakiin maalinkaa cidiba wax sheegan maysaba allah maalinkaa hadlaya waxa uu leeyahy liman ilmulku lyawm maanta yaa wax leh cidi markay jawaabi weydo ayaa waxa uu leeyahy lilaahi alwaaxid alqahaar ilaaha awoodda dhammayska tiran leh isagu wax tirqiya ayuunbaa maanta wax iskale cid ka wax sheeganaysaa ma jiro almulku yawmaidin alxaq lilraxmaan maalinkaasi ilaahay baa iska lehoo maamulkiisu dhammaystiran yahay marka ilaahay adduun iyo aakhiraba waa kale tasarufka dhammayska tiran isagu leh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adigaanu gargaar kaa doonayna adigaanu ku caabudayna adigaanaanu gargaar kaa doonayna marka intay addoonkiiyo ilaahay bay u qaybsan tahay ilaahay xaq uu leeyahay waa cibaadada addoonkuna xaq uu leeyahay waxa weye markuu ilaahay caabudo inuu ilaahay siiyo wuxuu doonayo erayga sidaad arkaysa iyaaka oo la horumariyey labada meeloodba waxa weeye uu faa'iidaynaya xasr ilaahu adoo keliya adigoo keliya wax kaloon kula caabudayaa ma jiro nacbudu iyo nastaciinu haddii aad u fiirsato
waxa horeeya nacbudu nastaciinuna way dambaysaa taa macnaha laga faa'iidaya waxa ay leeyihiin culimadu waxa weeye ilaahay isticaano iyo waxaynu ka doonaynaa gargaar marka haddaba aynu cibaadadiisa iyo waxa uu ina fara yeelno ayaynu rabbigan ka helaynaa waxa uu inoo ballan qaaday ee adigoo ilaahay ku gacan sayday kama helaysid waxaad doonaysa inuu naxariistiisa kugu siiyo mooyaane marka ilaahay baynu u hoggaansamaynaa sidaa daraaddeed baa wixii aynu ka doonayna inaynu ka helayna nacbudu iyo nastaciinu labaduba hab jamac bay u socdaan marka macnaheedu waxa weeye cibaadadu waxay ku fiican tahay jamaca waynu ku caabudayna ihdina siraata almustaqiim ilaahay jidka toosan nagu hanuuni marka jidka toosan waa islaamka waayo jid kale oo la maro oo maqsuudkaaga iyo ujeeddadaad leedahay aad ku gaari karaysaa ma jiro ujeeddadu qofku leeyahay waxa weeye inuu nasto oo uu raaxaysto ilaahay raalli noqoshihiisa iyo jannadiisana uu gaadho marka jidkaa toosan in badan baa qur'aanku uu ku soo celceliyaa oo aynu ku arki doonaa allah waxa uu tilmaamay markaas jidkaa toosan in uu yahay runtii ka dadka saalixiinta ahay mareen markaasaa waxa uhi siraata aladiina ancamta calayhim dadkaad u nicmaysay jidkoodii ilaahay una mari kuwa ilaahay u nicmeeyeyna qur'aanka kariimka ah ayaa ilaahay uu ku xusay waa dadka wan wanaagsan fiican ee ambiyada saalixiinta shuhadada iyo kuwa runta badan kuwaasay ka koobayn ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا إلهي رسولك عدة أطيعنا waxa ay kuwaasi u helinayaan kuwa ilaahay u nicmeeyay ambiyadii kuwa runta badnaa iyo shuhadadii iyo saalixiintii kuwa lala rafiiqo kuwaasa u wanaagsan marka ilaahay baynu baryaynaa oo inuu inagu hanuuniyo kuwa jidkooda ina bariyo waa ducaa aynu ducaysanayno غير المغضوب عليهم كل لو عرضي aan ahayn kuwa loo caraday waa yuhuuda ilaahay nacdal budusha uga tuuray markii ay xaqi ka bayreen man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wala daalina kuwa halaabayna aan ahayn kuwa halaabayna waa nasaarada iyo kristanka ilaahay baa wuxuu qadallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil iyaga aan baday jidkii toosaaday ka lumeen dadkiina way ka ambiyeen marka cumuuma waxaad arkaysaa suuradu amaantii ilaahay bay koobsatay duca fara badan baa ku jirta sidaa daraaddeed bay sunno tahay marka suuradda la dhameeyo ama salaada ku jira ma ka baxsano oo aamiin in la yidhaahdo iyadoo aynu ilaahay baryayno inuu ducada inoo aqbalo allah inoo aqbalo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu